arrimahan ugu fikir ma ka baxaysaa waxyaabahan mise cunugaaga ayaa fiirsanaysaa hooy idagayso inta soo fiira ayaan ku dhahay dhaqso fiyoraan halkan wuu iska yaalaa waxna ma qabto laakiin guriga ayuu iska qurxiyaa ka war ilaa iyo 6 bilood ee ka dhammaanaysa waxaan u baahanahay gurigan inaad iska fadhisid weliba aad aamusid qof afaarahoodan aadan gelin kasta yar aa ooynays inaan kuu naxariisanayo maa moodaane war aniga ma naxo qalbigaygan mar hore ayuu adkaaday ma garanaysaan aya jilinkan aa halkan ku haysa waxaa loo baahan yahay inaa meeshan aa ku iloodid gabadha adiga maclimadda aweed ayaa xaflad loo dhigaya waxaan loo baahan yahay igu sabir oo keliya inaa noqoto ma xishooto hooyo fiican ayay iska dhigaysaa laakiin hooyo fiican ma ahayn aniga muhiimaddeedu waxay tahay 6 bilood inaan la joogo 6daas bilood markay dhammaatana waa kala tagaynaa ooyintaa ku nacaya jilinka beenta ah taas aniga hooyo uma aqaani mana ayna hooyaday nolol silac ayaa ku soo koray haddana nolosheeda ayaa dib ugu laabanaa sababtoo ah jilinkeeda foolxumad badan ayaaba dhibaayo mahadsanid waad soo imaatay وانكو سلامي وانكا قاد وما سنتي هروسي صار ما سنت يا وحده وجهي هذا اللي ما هو نكسر maxaa kugu dhacay wixii aad rabtay inay igu dhacaan ay igu dhacay anigu waad iga guulaysatay adigoo keliya maaha adiga iyo reerkaagaba waa iga guulaysatay ugu dambayn gabadheeda qalbigeeda naceeb ayaad iigu abuurteen adinka qalbiyadiina naceeb fara badan ayaa ku jira naceebkaas dartiis ayaad ku kala fogaateen sidaas si lamida ayaa rabtaan gabadheeda qalbigeeda naceebna aad uga abuurtaan aamaan soo hadal maxay dhahday xagee ay wada adiga isii daaya gacanteeda maxaa ku dhaji ka fog soo kuma dhih arrimahan faraha kala bax sabab maxaan sameeyay aniga weli naafiya arrimeeda faraha kula jirta maxaa koosgari maxaa damacsantaa adiga ii sheeg hadal dhaqso adiga maxaa kaa qusay maan isma qalaad yoo jira arrimahan waxyaaba iga qusay gabadhan fahamsiiyey barnatii wax wanaagsan maysan samayn sababtoo gabadhaas ayay u timaada wax walbana way u sheegtay haddana ayada xaaladeedu way xuntaa sidoo kalena cunuga caloosheeda ku jiro xaldiisa ma fiicno ilaa haddana way suxsantaa walaal okay dhakhtar ku tag wixii soo kordhan waa inaad ila soo socodsiisaa waaya barnati ulajeedadaadu maxay tahay aniga ulajeeda gaar ma lihi arrinta waxay ahayd oo keliya aniga naafiya ayaan la hadlay waxaana dhahay xafladda imo riyaana runta waxay tahay waa inaad u sheegta adiga ayaa kugu qaran dhib badanaa war gabadhaa maxaa la dhahnaa dhegayso waad la socotaa familkayga waxyaabaha ka soo roobaan gabadhaas noloshadan hadda halis ayaad gelisay barnaad ma ka fikirta middaas ya halis ah aniga ku talagalo ma balse dadka waxay u malayaan wax walba si ku talagal ah inaad u samaysaday maxaa ku dhacay ma aqaan hadal waryaa runtana ii sheeg sabab naafiya adigii familkaaga maxaad ku samayseen hadal waryaa sidaa yeeshaan gabadha war isiidaa gabadhaas waxba kuma samayn waad ku samaysay adiga ayayda waxba isma dhaantaan ayada ayaa wax walba ku samaysay
arrinkan gabadha nolosheeda ayuu quseeyaa hadal waa ku baryaa amisnaan يا قرية هلا محل سجانة وقتك وحلو تاجي عناك لو صار لها هلا وعق بدل محل عينه يا قرية لا خطة هاش كل جاي يقصي دينيني وانكم مقلي ويلك كده جيسو قبلنا صديرة طايدة هبت بعد شقكم من لك وإنه لأنه قاعد على وشة كجرد ما هذا ليش محكوا قول عين ورياه ها أي ويا واقف دب ملهن أوكي دب ملهن أنا واحد بوجان وايه adigoo og ayayda wax walbo ay samaysmaa haddana ka aamusan tahay sidee ku dhacda midaas riyaanj adiga qof xun ayaa tahay adiga hore waxaad ii dhahday reer kuraana waa dad xun balse dad xun oo keliya maaha ee waa dadka dunida ugu xun waxa ay qiimeeyaanna waa lacag dadka noloshooda ma fiiriyaan mar walba inay dhibaateeyaan ayay jecel yihiin laakiin adigoo og wax walba oo dhacaya ayaad haddana garabkooda tahay waxa keliya oo aan ka xumahay waxay yihiin nin noocaan oo kale inaan aniga hore u jeclaaday jacayl oo keliya maa ee adiga inaa cunug kuu dhal ayaan ka xumahay anigoo ka shalaynaya gabadhaas masaakiinta qaladka ee qaabtan ay u maraysa mii sheegi kartaa maxay idinka galabsatay waa gabar masaakiina wiilkiina ayay jeclaatay jacaylkaas dartiis ma ciqaabta u maray ayada wax walba ayada ayaa ka dambayso sidaasay taa waa la wada ogyahay haddana garab ayaa lagu siinaya ayada ayaa wax walba raalli loogayaa taas maxay ku dhacday ii sheeg isdeji marka hore adiga maxaa kugu dhacay gabadhaas waxaa ma soo gaaraa adiga maa sidaasi dhahaya adiga og walaalkaa waxa uu sameeyey reerkaaga waxay samaynayaan miyaa haddana sidaas u hadlaaya adinka dantiinna waxaan ahayn oo aad taqaanin haba yaraatee malaha mar walba waxaa qiimaysan lacag oo keliya awood oo keliya mar walba waxaad jeceshin dadkiina u faataa taas maxay ku dhacday ii sheeg waryaa hadal isdejiyaan ku dhacay wixii dhacay waaya dhacay balse waxa wanaagsan hadda kadib inaad ka fikirto waxyaabaa dhici doona aman aniga hadda go'aan waxaan ku gaaray gabadhayda meeshaan inaan ka kaxeeyo sababtoo ma rabo inay ku dhex noolaato famil naxariis iyo jixinjix madhaba aan isku muujineen iyaga dhexdooda xitaa may aniga mar rabo gabadhayda nolosheeda inay baabaado sida hooyada nolosheeda ay u baabaaday oo kale si fiican ii dhegayso digniinta ugu dambaysiina waa inaad iga qaadato ha isku dayin arrimaha hooyadee furaha inaad la gasho sabab maxaa diidaya hooyada arrimeeda inaan soo fara gashto iyo jawaab maxaa iga hor taagan arrimaha hooyadee maxaad kala socotaa waxaan keliyoon kala socdaa hooyada reerkaaga dartood inay nolosha isku dhaafisay wax kaloo aan ogahay ma laha hooyada nolosheed inay isdhaafisay qofka keliyoo ku kalifay waa adiga ayayda carbeen dhawaakaasi amas maxaa dhacay ma qaldanaha waxyaabaha la ii sheego o dhan ma beenba soo ayayda hooyada kuma kalifin inay isdisho runta ii sheeg hooyada dilkeeda ayaydaasoo kama dambayn baranat wax walboo dhacay ayayda ayaa ka dambaysay ciilba amas hooyadaan dhibaatada meeshaan ka jirta ayay u dulqaadan weysay kadibna nolosha inay isdhaafisa ayay ku fikirtay hadalkaas ma beenba amas waxayna istiri intaad silacaan irafaadkan ku noolaaneed waxaaba kuu dhaanta noloshaan oo dhan inaad ka fogaato ood iska dhimato hooyadaa marka hore ma aysan fahansaneen balse markii dambe waxay fahantay gurigan dumarka loo soo guuriyo dhan wax qiimaa inaysan agtooda ka lahayn iga jooji hooyada adiga ayay ku dhashay markaas kadib waxay isleed wiilkaaga wiil wanaagsan ayuu noqonaa reerkan
oo kale inuu noqdo laga balse ayada fikirkeeda wuu qaldanaa adiga qof xun ayaa noqotay reerkaaga ayaa la mid noqotay ayadana markay taas aragto way u qaadan weyso waxay istiri dunida waxba kuuma yeelaan waa inaad sidaa aamus ma qashid miyaad مسلسلكani wuxuu gaar u yahay inta dad kirtid wad hadash Muqdisho Cable TV agteeda qiimaha diidan ka lahaa leeyahay wada dileed Soomaa anigaba hooyo ayaan ahay Riyaanj wax kastana waan dareemi karaa gabadheeda si aan gurigan uga fogeeyo darteed wax walba ayaan u sameynaya xitaa haddii ay noqoto in aan nolosheeda waa diyaar ayaan u ahay gabadheeda ma raba adigoo kale inay noqoto waan kaa fogeynayaa cimrigeeda inta ka dhiman maxkamadda ayaan dib ugu laabanayaa waxaana ka codsanayaa gabadheeda inay ii ogolaadaan markaas kadib waan soo kaxaysanayaa anigeena ila noolaanaysaa mar dambe lagama yaabo agtiina in ay timaado nolol midda ugu fiican ayaan siinayaa haddaba middaas maskaxdaada ku hay gabadheeda lagama yaabo agtaada in ay timaado reerkaaga agtoodana waan ka fogeynayaa mar dambe in ay timaado lagama yaabo ayaan ku dhahay hooyada weligeed gurigan wuxuuna ku meeysan arkay sidaa darteed waxay istiri maanta intaan leeg maalin walba intaad ku dhex jiri leed meeshan waa inaad isaga tagtaa markay isaga tagta kadibna go'aan waxay ku gaartay inay isdisho gabadheeda nolosha noocaan in ay ku noolaato aniga raali kama ah sida reerkaaga ay u xun yihiin oo kalena ma raba gabadheeda inay u xumaato meeshan waan ka fogeynayaa maxkamadan tagaaya waxaana ka codsanayaa gabadheeda in ay igu wareejiso kadibna waan idinka fogeynayaa adiga iyo reerkaagaba lagama yaabo mar dambe agtiina in ay ku noolaato ama ay soo istaagto maanku aawo xagee ku maqan tahay taleefankas maxaad iiga qaban laadahay waxaan rajaynayaa ugu yaraan naafiya inay caafimaad qabto isbitaalku waa ina raadiyaa jooji ismaqal hadduu jiro hala joojiyo micnayga myuusikan ka wadayaa wax kale ma jiro gabadhaan adagaysan goordhow waxay ii noqonaysaa dumaashii waxaa runaa goordhow gurigan in laguu soo guurin doono balse waxaa wanaagsan lugtas intaadan gurigan soo gelin ka hor dadka ku nool arrimahooda iyo inaad ogaato iyo dabeecadooda inta qof walba oo gurigan ku soo biiro aad arkaysid ilaa hadda ma jiro mid cadaalad ele misna qanacsan
gurigan iyo cadaalad kaafi kala dheer adiga shiidan sulaalkii macnaa maxaa kugu hay iska hadal tartiibtaada runtii haddii aan idin sii wada sheeg adigana idinka waxaad u malaysiin soma qabsan in ay tahay dumaashadiina micnahayga ee waxaan ka wadaa in aniga xaskayga musalsalkani wuxuu gaar u yahay qabsan aad arkaysaan waa sida saacadda bamka loogu talagalay waqtigeedana wuxuu dhaha sidee wax wadaa adig walaalkii macnaa qarax iska sug jiraan dhibatada ka cabsanaya qabsan qatar wa waa ku baryaa isdeji waa fardabaxaysa adigano walaalkeedsan fardabax lama dhihi kara waxaa la dhihi karaa runta ka hadal gurigan aad arkayso dad waxaa ku nool 25 sano isla nool ilaa haddana ma aysan isfahmin laakiin aniga soo 25 ka waran gabadhan fahmi lahay macnaa 25 maalmood xanuun igu goormay sanado dulqaadsaa marka intaas ma fahmin saasay tahay waxaa ila sii nool mataqaani gabar sida jira macnaa insaanee la egtaa maalinta igu soo biirsane waxaan isu qaatay xabsi inaan ku jiro qofka ay ugu raacsanayn nolosha guurka xabsi inay tahay afkaaga alfaro micniga hadlaanka waa doodha ka keeno mooshin ha ka keeno walaalka adiga ma ku jirto waryaa aamusaan ku dhahay nolosha guurka maa xabsi ahna ii sheeg waryaa anaga dumar haddaanu nahay wax walbaa idin qabanaa dharkaa idin meernaa quraaca idin sameynaa wax walbaa jeceshinaa diyaar idin kaga dhignaa markaas leedaha guurka xabsi waay anaga waxaa maqalnay xaaskaaga si xad dhaafa inaad u jeceshahay waa maqal oo keliya ee waxaa rabaa arrintaas inaad ii sheegto rumiya mise waa been ii caddeey su'aal aad u wanaagsan waan jeclahay xaaskayga waad u jeedin dadka is jecel is dagaala maxaad u fiirsanaysaa u sacatuma yaa jaceelka u saxbiya music ay ka jooji hadda waa ila bilaado waana amarkayga wow riyaanji siida maxaad iigu dhagan tahay war iga foqayaan ku dhahay riyaanj waan ogahay familkaaga dartood hooyada inay isku dishay ayeeyadaa le may ku kalifta hooyada inay isdishay waxay istiri nolosha noocaan intaa ku noolaa laheed inay isdisho ayaa kuu dhaantay sidaas darteed ayayna isku dishay soo lagama yaabo hooyada silacaas iyadoo diidaysa nolosheeda inay ku weysay laga bilaabo maanta waxaad arki doontaa naciibkayga heer uu gaarsiisay Dashi Outlets waa dukaamo silsilada ganacsi ah oo ku haya waxyaabaha kala gedisan ee lagu dhashto kuwaasi oo ah dabiici ka badqaba kiimikaaliska iyo waxyaabaha jirka waxyeelayn kara alaabaha aad ka heli karto Dashi waxaa ka mid ah kareemada jirka shaambooyinka timaha saabuunada qubayska oo isugu jira kuwa caadiga ah iyo dareere saliidda madaxa oo kala nooca face wash kala duwan iskaraabka jirka barafuuno sidka caruurta oo ka kooban shaamboo saabuun iyo kareen alaabaha nadaafadda guriga intaa kuma koobnee waxaad ka heli doontaa wax kasta oo la Dashi xarumeeda kala duwan waxay gaarayaan ilaa 4 xarun xarunta koowaad waxay ku taallaa Xamarweyne dhabarka dambe ee Muqdisho Mall xarunta labaad waxay ku taallaa Suuq Bacaad dhismaha Rugsa Mall qaybta hoose ee Iida xarunta saddexaad ee Dashi waxay ku taallaa Cali Kamiin waxayna ka agdhowdahay Ex-Cinema Tawfiiq xarunta afraad waxay ku taallaa Madiino gaaraan Xaawataako xarunta shanaadna ka filo dariskaaga insha Allah
fiiro gaara iridaha dhaasha outlets waxay soo dhoweynayaan oo ay u furan yihiin qof kasta iyadoo oo aan la fiirinayn qofka midda uu yahay lab ama dhidig carruur ama ciroole iyo heerka nololeed ama dhaqaale fadlan wixii faahfaahin intaa dheeri ah kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqdo email facebook iyo weliba mobaylada